بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم kusoo dhawaada channelka engineer maxamed ibraahim cumar waxaan daraad kasoo hadalnay maalintii kasoo hadalnay maadada Englishka waxaan kasoo hadalnay khaasatan tennis koowaad ah present continuous tennis maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno daraad waan kasoo hadalnay tennis wuxuu yahay qaabka uu shaqeeyo wuxuu ka hadlay waan soo sheegnay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno qaacidada uu ku shaqeeyo tenniska ama present continuous tenniska qaacidada ku shaqeeyo aan rabnaa maanta inaan ka hadalno horta tenniskan marka la joogo present continuous tennis ama the formula of present continuous tennis wuxuu yahay waa subject plus lagu daray am slash is slash r ustaad markii la dhahayo subject plus am slash is slash r am iyo is r maxay am iyo is r waxay yihiin waa main verbkii caawin lahaa subjectkii waa marka waxaa leenahay subject plus am slash is slash r markii slash lagu dhexeysiiyo waxay tahay haddii subjectkii ay keen subject wuxuu noqon karaa subject of pronoun iyo subject noun noqon karaa am is am c am rc mid kasta wuxuu ku shaqeeyo c aa loo jeedaa marka waxaa leenahay subject plus am slash is slash r waxaan ku daraynaa plus verb waxaan ku daraynaa plus ing plus object waxaan dhahnay subject plus am slash is slash r plus verb plus ing plus object intaa micno ustaad subject muxuu yahay subject wuxuu noqon karaa subject noun ama wuxuu noqon karaa subject pronoun sida subjectana wuxuu noqon karaa laba u kala bixi karaa subjectkan wuxuu noqon karaa subject of noun ama wuxuu noqon karaa subject of